بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. walaalaha Soomaaliyeed meel joogtaan ba Ilaahay subhanahu wa ta'ala idinku amaanyeelo cidii dhibka Allah ka qaado cidii dan la Allah oo fi inta baahan Allah deeqo inta bugta Allah bogsiyo intii dhimatay Allah u naxariisto waalidiinteena Allah u naxariisto anagana Allah nooga daba naxariisto dalka diinta dadka iyo dawladnimadaba Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo badbaadiyo. maanta waxaan ka hadlayaa nimankii imaaraadaha shuusha u baxba ka dhacday xamar waa ka qaateen shadaaftoodii wax isugu haray ma jiraan maryo dhiig laana la kala furtay. waxaan bogaadinayaa ciidanka amniga ee airportka aadan cadde sharaf iyo karaamo dushiina ahaato. nimankaas iyagoo diblomaat iska dhigaya oo rabay in maamuus gaar ah ay helaan baa waxaa la ii sheegay in la huyimaleed gareeyey hadalla xunna lagu yiri meesha dadku ay maraan mara la yiri mashiinka dhex mara oo la baaray oo si fiican loo baaray oo dharka lagala baxay. guul iyo gobonimo shuushow bax dhagdheer dhimatay dhulkii nabad 7 cishay qabsadeen boosaasan inay kaga dhamaadaan. waxaan arkayaa kuwa abaabulaya xaflado lagu soo dhaweynayo ama loogu baroor diiqayo. horaan u sheegay agoon aabihii dhintay inuu iska ooyo dee waxaan ahayn oo u haray ma jiraan, laakiin imaaraad socay imisaan ilaahay baryayn dad masaakiinaan nahay muslim baan nahay rabbi oo dalka iyo diinta iyo dadka noo badbaadi ilaahu shaydaanul carab naga imsaan lahayn imisaan hoos u niri kor imisaan u niri ilaahay muslimkaas yacni Soomaaliya khatarta ugu weyn oo ay wajahayso waa meesha ay ku taalo meel istaraatiijig ah bay ku taallaa oo khariban oo adduunkoo dhan isha ku hayo. iyadii baa maanta badbaadisay markii ay Israa'iil soo aaday wa asaan takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. waxa laga yaabaa inaad dhibsataan laakiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala isaga oo khayrkii iyo sharka uu khayridii yahay. Israa'iil oo wadnuhu u nala qalalay waxa soo baxday 50 wadan oo kulligood qarxay oo yiri Israa'iil baa halka imaanaysa absolutely not. waxa la yiri libaax nimaan aqoon baa lax ka rita. Somaliland iyo dadkan yaacayo oo masaakiinta oo cirra ka mid yahay haba kama garanayaan Israa'iil. hadday garanayaan Israa'iil waxa ay tahay dab nin soo qaatay oo gurigiisa soo gashaday oo dab ku ciyaaraya wari. Israa'iil waa bombo diyaara oo inay qaraxdo u baahan meel walbana ku qarxaysa kibir iyo darrana ku darsatay. waxay marayaan xilligii uu Ilaahay subhanahu wa ta'ala thumma radadna lakumul karrata alayhi wa amdadnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum akthara nafira. waxaanu idinka dhigaynaa tirada meerka ugu badnaydeen ugu awood badnaydeen ugu xoog badnaydeen ugu dhaqaalaha badnaydeen baanu idinka dhigaynaa dib idinku celinayna. waxaan eegaynaa inaad sabirtaan inaad Ilaahay rumaysaan inaad edab yeelataan. haddaad kibirtaan mar kale hadda waxaanu idiin soo diri doonaa dad idinka shaqaysta. xilligii marka waxay marayaan kibirka weli looma soo dirin cidii ka shaqaysan lahayd. dowladdaas dhan oo Ameerika aad aragteenoo adduunkooda u bootaynaysa iyagaa iskale iyagaa iska maamusha oo waxay ku maamushaan waliba si fool xun oo qaab darra ah blackmailing bay ku maamushaan. waxaa hadda Minnesota ka socda oo Soomaalida lagu samaynayo iyagaa ka dambeeya. waxaan arkayay kuwii xawlaadaha oo la maagayo oo aamusan waxay la aamusan yihiin maaqaan guryahay hoosta ka xirteen. haweenkii waxaa laygu yiri dhalinyaradii wax baratay oo aan aksanka lahayn oo luqadda baratay oo waddanka ku dhashay oo sharciga lahaa hooyooyinkoodii iyo aabbayaashooda albaabada u xirtay oo waxay yidhahdeen jooga gurigiin ha soo bixinina oo yaa idin difaacaya haddaa carruurtiina ceshataan wax iska dhicin lahaa oo dadka la googoosan lahaa oo meeshaan ku dhashay dhihi lahaa oo indhaha faraha ka gelin lahaa. ujeeda anyway imaaraad waa ina daayey. ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu ku soo saaray Sacuudi. waxaan rabaa inaan u sheego agoonta kelmadaan idiin sheegay and I mean it. nimankaasi waa tageen rajo ma leh dowladda bedel ha idiin raadiso meelo kale iyo dowlado kale oo kharashaadkii aad ka heli jirteen aad ka heshaan inta ka horeysa kadibna dalkiina dhista iimaansada. dekadda boosaaso horta usbuuc bay qabsadeen inay kaga guuraan dhammaan waxay leeyihiin oo dhan ka gurtaan waana tegayaan. shar bay la joogeen Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dhinaca inoo dhaafiyo meel daranna Allah u dhigo oo fog oo aanay ka soo noqon. waxaan kaloo idiin sheegayaa qadar
godkii ay la rabeen god walaalkaha qodin ku dhici doontaana ma ogide oo ahaa in la isolate gareeyo oo diyaaradahooda hawada laga xirto bay ku socdaan waxaan arkay Cumaan oo TV-geeda laga soo daayay barnaamij la leeyahay waxaanu qabanay shabakad amni oo jaajuusiina oo imaaraatiya macnaheedu maxay tahay Cumaan oo dhan iyo Sacuudiga haddii laga xirto halka dhinac oo u furan waa Qatar iyo Iiraan Qatar iyo Iiraan adduunkuna wuxuu marayaa khalkhal Iiraan weerarka iyo dagaalka lagu hayo iyaga ka shaqeeyay mawjeeda marka musiibadii ay ka shaqeeyay jawaasiis bay ahaayeen Qatar bay jaajuusayeen oo Sacuudiga jaajuusayeen oo Iiraan bay waa nimanka Turki xataa isku dayeen in khilaabaan muslimkii oo dhan nimanka baabashay way barnaamijkii ugu kharibnaayo hadda ka horna aan idiin sheegay waa kan hadda public noqday dhowr sano ka hor baan idiin sheegay waxay lacag ku bixiyaan la dagaalamaan muslimiinta ku nool qarbiga Yurub iyo North America masaajidaa laga xiraa dad masaajido bay xiraan intay lacag ku bixiyaan ururo islaamiya la xiraa dadkoodana la caqabadeeya oo meel daran iyo maxkamada iyo dambiye loo sameeya lacag ay ku baxshaan waa dad muslim sheeganaya la dagaalamaya diinta islaamka wax lala yaabay oo la yaab leh ayay noqdeen markay kibreen ilaahay ka fogaadeen ilaahay wuxuu u soo diray ciqaab samada kaga timi saaka iyagoo bahdalan bay ka dhoofeen airportka Muqdisho boosaasana waxa ugu haray ayaamo intaas waxaan ka oranayaa kelmadaas dawladda Puntland waxaan leeyahay laba arrimood boo idin kala hadlaya baqaariga ay ka heli jirteen waxba ciyaalada intaad martisoor iyo ku aruurisaan calankooda hala ururdinina awal baan ku ceeboonay calan ajnabi oo yahuudeed mid kale hala ururdinina calankiina qaata calan baa leediin ajnabi calankiisa maxaa u qaadanaysaan oo idinku raray why do you even care haddaad calan ajnabi qaadanaysid kuwa la dulmiyo masaakiintaaba calankooda kor loo qaadaa falastiin calankeeda qaata ninkan waa ninkii falastiin la diriirayo baabi'inayay horaan idinku sheegay dad masaakiinaad tihiin waxba garan maysaan xoogaa lacaga kuwa la soo siiyaa idin marsanaya ma ujeedaa dowladda waxaan leeyahay Puntland war wixii dhaqaale ahaa aad ka heli jirteen iyo calmiskaad kaalmada calmiskaad cidda duqeynaysa Maraykanna waa joogaa imaaraad waxba ma duqeyn jirin dadkaad u sheegaysaan khuraafaadkaas waxay duqeeyeen oo ay qabteen oo shaqo ah badan lama ogee haddayba xataa wax qabanayeen waxa diyaar la Maraykanka idiin duqeynaya idinkaa diyaarada la idiin gadaya oo bari diyaarada gadanaya dalkeena lagu soo noqonaya caalamkii oo dhan baa soo yaraanaya ciriiri baa bilowday dadkii baa dibadaha laga soo raafaya waa la xawalaadii baa la xiraya Maraykan dadka aad meesha la joogtaan xogaaga dhaqaalaha oo loo soo diro in badan oo kamid ah Maraykan bay ka timaadaa waa joogsanaysaa sida u dhaama marka dalko iimaansada oo dawladdiina la shaqaysta dawladduna doorashadii dhexda ha dhigto ha qabato marka qodobka koowaad waa qodobka ah wixii aad nimanka ka heli jirteen waa helaysaan noonaaska iyo oohinta inta iska daysaan iimaansada dalkiina iyo dadkiina iyo dawladdiina taas waa qodobka labaad xuduud baan xiraynaa xuduud haddaan wax idiin sheegayaa dhegaysta geeljiru geela waana wada jiraa waana kala jiraa annaga reer nugaaleed baan la yidhaahdaa dhulbahante waa reer nugaaleed dhulbahante iyo nugaal cid xuduud u kala dhigi kartaa ma jirto siciidow ka laabo ciidankan aad ka soo raraysid xero warsangeli oo aad leedahay xuduud baan dhigayaa Puntland meesha ay kaga xiran tahay nugaal ay kaga xiran tahay sool war ma xiri kartaan war waa beentiin dagaal nala soo aadinina dhulbahante iyo annagana lama kala xiri karo dad isdhalay oo isla dhashay oo wax walba ah waana cidna dhex geli kartaa ma jirto war ha islu goynina annagana dhibaato iyo dagaal hana gelinina dhibna ha noo soo waaridinina nugaali waa nabad war wallaahi baydnaan joogayn haddaad xabad ka ridaan nugaali joogi maysaan ku soo noqon maysaan runna waa idiin sheegaya dagaal haddaa bilowdaan waa kii laydinku soo qabqaban lahaa idinkoo garbaduub u xiran laydinku keeni lahaa oo maxaabiisa kaa ku oogi lahaydeen wey joogsada PSF oo keligeeda iska celin weydeen PSF oo ay la socoto Jimcaale oo uu la socdo dhulbahantoo dhan baad iska celin kartaa fa badana wariyaa runta wax idiin sheegaa weydeen cagaha dhulka dhiga dhulbahante muxuu idin yeelay dawlad maamul buu dhistay maxaa uga xuntiin maamulkiisa what is wrong with you soo kaa dhiigga u shubteen maaha
oo loo dhimanayo loo dhaawacmayay maxaa isku kiindiray caruuraa idinka dhex shaqaystay iyo siyaasi tuug ah oo ajnabi uu soo dirsaday shaydaankii mushkilada alifay shaydaanul carab teg dhagdheer dhimatay dhulkii nabad roob baa da'ay arladii waa la nabdoobay ee nabadda garta nabadda qaata nabadda u soo daadega hanala soo aadinina colaad reer nugaaleed haddaan nahay arrintaa waxaan ka xignaa anaa hadda idiin sheegaya taas mowqifka yaga waana u dhannaa wiilaa gadateen iyo mid askari oo idiin shaqeeye iyo naguma matalaan annaga iyo kuwa qawqaa'iyiin oo aad mushahar siisaan nama matalaan shaqaalaa la yidhaahdaa ciddii mushahar u bilowday u shaqeeyaan anaa berri u bilaabaya mushahar anay ila shaqaynayaan macno ma leh mowqifka iyagu ma leh mowqifka annagaa leh degaankaa leh ma ogolin xaggee xiraysaa su-aalaan ku weydiiya siciidow ma yoocada xiraysaa ilaa yoocada iyagaa leh yoocada xaggee ku taalla garowaad kala xiraysaa magaalada dadka ugu badan oo degan dhulbahantay inay yihiin waad og tahay maxaad u damacsan tahay dadka inaad musiibo dhex dhigto iyo colaad hanala soo aadin dabbaa la orodaa dhowr jeer haddaa ku baxsatay kan waa kaa ku dhiman lahayd meel fariiso cagahana dhulka dhig dowladdaadana iimaanso iyo maamulkaaga wixii kaa dhumay oo dhaqaalo hoos laguu siin jiray kolley reer puntland shilin kama cunin adiga carruurtaada qaybsan jireen ka samra kam shufnaa maraakiib wey macadallaahi huuri maraakiib baa degi jirtay xoogaa yara hadda shaydaanul carab shar uu la tegey hantidaadu qaadan jiray dahabkii uu kaa guran jiray baad cillo ka helaysaa ee iimaansa dalkaaga gaaskaaga la soo bax barwaaqadaada arag fiish iyo waxa ka buuxa baddaada barwaaqa ka buuxday baddaada iyo berigaaga iimaanso dal dhiso iyo dad waxaa kuu soo haray reer hargeysa waxaan arkay mikrofon lala dhex qaaday dadka oo laleeyahay iiraan bay weeraraysaa israa'iile yaa la jirtaan oo ay si cad u leeyihiin si aan kala harlahayn dhammaantood war israa'iil baan la jirnaa qaarkood xataa ay leeyihin ciidankan gelaynaa wadaadadii inta safka galay lahaa dacwadaanu ilaalinaynaayo mowqif baanu iska qaadanaynaa isdaad raacina dacwadaa ilaaliseen waa taas adeer wadaadadiinni waa idin gabeen waxna idinma sheegayaan kelmaddaa ku hadasheen kufrun can ilislaam wey qofka mudaaharata alkufaar dida almuslimiin sameeya ijmaac weeye culimada muslimiinta waxay ijmaac ku yihiin kaafir inuu yahay murtad diinta islaamka ka baxay hadduu ficil ahaan u sameeyo iyo hadduu niyad ahaan qalbiga u sameeyo labadaba in lagu gaaloobayo adeer masaladaasi caqiidadiinnii bay fasahaadisay israa'iil adduunka intii la saarnaa lama arag dad saa ugu leefleefayo u jecel lama arag iyagaa yaaban waxay leeyihin bismi illaahi raxmaan war meelna laka jecel yahay baanu soo aragnay meelihii loo heshiisyada la galay oo dhan weligood ma arag meel laga jecel yahay waxay arki jireen dowlad iyo xukuumad jaajuusiina oo qawqaa'iyiin oo tuug ah iyo shacab aan maqli karin oo 100% ka soo horjeeda maca shacabkii dowladdii baaba yaaban yaan dhex waxaa laygu lahaa ciraa wadaada wuxuu ku yiri war dadka wacdiya dadkan waa waasheen meel daran bay ordayaan hadday wadaadadiin idinka aamuseen ogaada inaysan waxba idinku maqnayn ogaada inaysan diintiina dan ka lahayn ogaada inaysan badqabkiina dan ka lahayn dadka kale oo annagu aan ka mid nahayna waxaad leedihiin qabiil iyo qabyaalad baad nagaga caraysaan iyagiina waa idin gabeen oo waa idinka aamuseen afkii baa juuqda gabay shacab bay noqdeen weliba ku liita oo miskiina ilayn idinkuba shacab baa tihiin waa la dheeraysanaysaan kufri iyo gaalnimaa la jahraysaan iyagu maxay khayr iyo diin iyo iimaan ula jahri la'yihiin oo ula baqayaan ma garan karno marka adeer kelmaddaasi waa gaalnimo ha dhihinina mar dambe yaan laydinka warin mar dambe warkaasi u gelin ilaahay u toobad keena intiina hadalkaa tiri rabbi u soo noqdo subxaana wa tacaala qof muslina iyo qof gaala oo diriraya oo weliba gaalku gardaran yahay oo gaalku awood badan yahay inaad tidhahda kan muslimka abaan weliba ka hiilinaya oo ciidankan galaya waxbaan ka laynaya laa ilaaha ila allah kelmadda ma ilowdeen calankiina ku qoran oo laa ilaaha illa allah muxamadu rasuulullah intaa wadaagtaan inaa walaalatiin ma ogtihin huwa samaakum almuslimiina min qablu ilaahay magac inuu idiin wada bixiye hal ah oo aad ummatihin ina haadihi ummatukum ummatan waaxida wa ana rabbukum facbuduun ilaahay inuu idin yiri ma ogtihin anaa rabbigiina idinkuna hal ummadaa tihiin mu'miniin muslimiin baa tihiin ummad keliyaana tihiin idinkaa mida cid alla ciddii idin soo aadana muxuu yiri nabigu sal ll ly slam mathalu lmu'miniina fii tawaaduhim